warbaahinta Mareykanka ee Fox News ayaa waxa ay soo warisay in xildhibaanad Ilhaan Cumar oo ka tirsan Congress-ka dalka Mareykanka lagana soo doorto Minnesota ay shaacisay in aqal gashay. Ilhaan ayaa barta Instagram-ka soo dhigtay sawir iyada iyo isageeda cusub Tim Maynard horeyna u ahaa la taliyaha Ilhaan Cumar ee arrimaha siyaasadda. Ilhaan ayaa sheegtay inay guursatay lamaanana ay ku ahaayeen siyaasadda laakiin iminka ay ku yihiin nolosha, iyadoo intaas ku dartay waa barako alxamdulillah. xiriirka hasaawe ee Ilhaan iyo Maynard ayaa soo shacbaxay sanadkii la soo dhaafay kadib markii xaaska ay wada joogeen ee Maynard ee lagu magacaabo Beth Maynard oo 55 jir ah ay dalbatay furiin. Maynard ayaa haatan Ilhaan Cumar waxa uu qaabilsan dhanka ololaha inkastoo uu si rasmi ah u noqday saygeeda nolosha. Fox News waxay ku soo waramaysaa in xaaska Maynard ay dalbatay furiin kadib markii ay ku tuuntay in saygeeda uu xiriir jacayl uu la leeyahay Ilhaan Cumar. Waxa bishii Oktoobar ee sanadkii hore Ilhaan Cumar ay dalbatay in ay kala tagaan saygeeda hore Axmed Xirsi oo 3 caruur ah ay isku dhaleen. markaas qoraal ay soo saartay ayaa ku sheegtay in xiriirka guurkooda uu burburay si aan ka soo kabasho lahayn. waxay Ilhaan sheegtay inay raadinayso sharci ilaalinaya caruurteeda waxaana ay maxkamadda weydiisatay in ay u ogolaato goob sharciga waafaqsan si wadajir ah oo loogu hayo saddexda cunug ee ay soo dhaleen saygeedii hore. taniya markii uu soo shacbaxay guurka Ilhaan iyo Maynard waxaa jirta hadalhayn badan oo dadka Soomaaliyeed ay siyaabo kala duwan ugu soo bandhigayeen baraha bulshada. Zubair Sheekh Cabdi, SBC.